waxaa sidii ballantu ahayd maanta golaha deegaanka ee degmada Gabiley ay yeesheen kalfadhigoodii koowaad ee ku dooranayaan maayar iyo maayar ku-xigeen cusub waxaana doorashada ka hor halkaasi uu gudoomiyaha maxkamadda gobolka degmada Gabiley uu ku dhaariyay 13 xubnood ee matali doona golaha deegaanka ee degmada Gabiley intaasi kadibna waxa la doortay maayar iyo maayar ku-xigeen cusub ka maayarka magaalada uu ku tartamayay maayarkii hore magaalada Maxamed Aamin Cumar Cabdi iyo sidoo kale Cabdirashiid Hayba Faarax Daacad oo kursiga maayarnimo kula loolamayay maayarkii hore waxaana halkaasi xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ay cod gacantaaga ku doorteen maayarkii hore magaalada Gabiley mudane Maxamed Aamin Cumar Cabdi oo haatan loo doortay maayarka cusub ee magaalada Gabiley halka ku-xigeenna loo doortay Dr. Cabdilaahi fadhiga waxaana kala fadhigani koowaad ka soo qayb galay wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Cabdirashiid Cabdilaahi Suufi iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Farasaabka gobolka iyo sidoo kale xogayaha fulinta iyo mas'uuliyiin kale Maxamed Aamin Cumar Cabdi waxa uu codeeyay 7 xildhibaan oo ka tirsan 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdirashiid Haybe waxa uu codeeyay 3 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley sida ayuu Maxamed Aamin Cumar Cabdi ku yahay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka degmada Gabiley gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka waxa uu tartamay Cabdilaahi cid la tartantayna ma jirto waxaana uu codeeyay 12 xildhibaan sidaasuu isna ku yahay gudoomiye ku-xigeenka cusub golaha deegaanka cusub ee degmada Gabiley ee lagu dooranayay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka oo loo doortay Maxamed Aamin iyo Cabdilaahi waxa la ilaahay xilka ku asturo xildhibaanada kale waxa leeyahay wada shaqayntu marka hore raggu markuu tartamayo baasha siyaasadda waxa weeyaan tartan baa lagu jiraa colaad maaha nin waliba xil buu doonayaa Cabdirashiid iyo waxa tartamayay Maxamed Aamin iminka laga bilaabo waxaan filayaa way soo dhamaatay tartankii xilfitankii la isku hayay ee siyaasadeed oo ahaa nin waliba kii kursiga fadhiisan lahaa maanta waxa la idinka baahan yahay dhammaantiinba laga bilaabo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xildhibaanada kaleba sida ummadda gobolka Gabiley ku nool dhammaantiin ugu tafaxaydan lahaydeen in ay horumar u gaarsiisaan halkan ka sii sareysa si fiican bay isu doorateen waana ku mahadsantiin kulay tartankuna wax furan marka horta labadiina qolay tartamayay ama labada maayar tartamayay inay midna kulay uu guuleysan lahaa midna wuxuu noqon lahaa uu ka hambaliyay inay sambaliysan kulay Cabdirashiid waxaan leeyahay wayna sambaliysan shaqo fara badanna way inta la saa horaba loo sheegay oo waxa soo gasheen meel cusub iyo maamul cusub iyo xildhibaanimo cusub oo aydan hore kulay waxa laga inta bedel ugu jirin dawladaha hoose aanu muddo dheer ba ka shaqeyn jiray kulay dadku wax badan bay ka aaminsan oo khaldan Maxamed Aamin waxa laga rabaa golaha deegaanka inuu isku wado oo aanu kala haysan ninkii uu codeeyay ka aanu codeynin inay isku mid noqdaan oo suurankaasina kuma codeyn kaasina uu ku codeeyay ma anfacaysa Maxamed Aamin waxa laga rabaa in labadan isku mid oo ahaadaan booban baahiyuna ciid ka badan yihiin waliba waxa inta inoo dheer filasho fara badan rag dhalinyaro tihiin aqoon-yahana tihiin wax badan baa leedka sugayaa inaad qabataan ka ilaahay idin fududeeyo wax aad iyo aad culus waa xil u baahan in la geliyo waqti iyo dadaal fara badan sida hore loo sheegay ciddii u codaysay iyo ciddaan u codayn baa gudoomiyihiinu waa xubno ka tirsan ama xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka shaqadana loo wada dhaqaaqayo marka taan inaad ku wada baraarugsanataan dadaalkiina aad muujistaan kulley waad naga ogtihiin ujeedooyinka waa qof markuu meel soo sharaxo yoolka kale iyo ujeedadiisa oo cadda marka taan waa dardaan weey dardaanka labaad ee kale waxa weyn isku wada tiimka isku wada 12 xildhibaan kale ama 12 xildhibaan kale marka gudoomiye ku-xigeenka laga reebo oo maaragtay shaqadu labay u dhaxaysaayo waa shaqada guud ee la wada leeyahay hadhow gudiyad soo qaybin doontaan in mid waliba maaragtay doorkiisa ka soo baxo kaasna dardaaran waa la xaji telefishinka qaranka Gabiley